بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد dhegeystayaasheena qiimaha qaayalow waxa aawan halkan adduunka daafiisada allada aan iga soo tabinaysaa hadagaala news oo anigoo magacayga Cumar Awal Ibrahim yahay aan ka soo hadlayno radio hadagaala waxay aawo waraysigu ku saabsan yahay programkii hore baan u soo tabin jirnay badbaadada Djibouti loo yaqaano ayaan ka hadlaynaa aawo toos waxaan u wareysanaynaa dad badan oo adduunka daafiisa jooga waxa ugu horeyn doona programka Xasan Sheer oo jooga Switzerland oo ka hadli doona dhibaatooyinka iyo maaragtay waxyaabaha ka socda siyaasadda Djibouti ku soo dhawow walaal waan ku salaamayaa soo dhawow fiidkana joogo السلام عليكم وسو دوان دوهي وحسن شير وحويا هانتا وحان umahadnaqayaa in program kan ku dhaqaaqay hadagaala news website ka hadagaala news ku dhaqaaqay aad baan ugu mahadnaqayaa oo ku wareysanayo in ummadda Djibouti uu ku wareysanayo oo ka wareysanayo maxay hay'adaha arrimaha ka jira dhulkooda iyo waxa ka qabaan aad baan arinta ugu mahadnaqayaa taw horeysa waa taa labaad waxaan ka hadlayaa xaaladda ka jirta Djibouti maanta xaaladda Djibouti ka jirta oo ah xaalad aad iyo aad u murugsan aadna u xun taasina waxay ka timiday ma imanin siday dadku u haystaan arrintani ma dhalanin maalintii dhibaatadani ma abuurmin maalintii 22 February sanadkiina dhaafay ma abuurmin doorashada marorsaday maamulka kaliya taliska meesha ka taliya marorsaday ma abuurmin dhibtani waxay abuurantay 1963 maalintii Ismaaciil Umar wadanka Djibouti yimid bay abuurantay ninkaasi maalinta uu Djibouti yimiday dhibaatadii uu la yimiday iyo ilaahay iminka wadanka ku haya oo doonayaan inuu ku baabi'iyo taasina noqon mayso tullo ogolaanayo sidaan ognahay taariikhda ninkaasi markuu Djibouti yimiday wuxuu ku biiray ciyaalkii budcadka ahaa iyo guudka budcadka ka ahaan jiray kadib markuu yara kobcay uu budcadnimadii ka baxayna wuxuu noqday nin u shaqeeya maamulkii gumaysiga ee meesha ka tirinay ummadda xasuuqayay ee siliga ku warayay nin u shaqeeya oo wuxuu ahaa raggii dadka soo sheegi jiray kadib wuxuu noqday markuu adeerkii meesha qabtay Xasan Guuleed maxay hay'aday maamulkii booliska la yiraahdo boolis politiga afka qalaad lagu yiraahdo booliska isdeesta la yiraahdo uu noqday taas oo ahayd wixii ka hor yimaada ama mabda ka duwan haysta maxay ahayd fikirka adeerkiiba inuu hoos ahaan loo duubo oo loo laayo dadka ama loo garaaco iyo ka shaqeyn jiray nidaamkaas ilaa imkana ka shaqeeya kadibna wuxuu ku dhaqaaqay siduu madax u noqon lahaa inuu dadka maxay ahayd kii fikir wanaagsan wata ama dadaalayaba inuu hoos ahaan mijaha loo gooyo markaas waxa weeyaan iminkana markuu taladii qabtay adeerkii meeshii ku wareejiyay wuxuu ku dhaqaaqay inuu dadkii Djibouti ba hadeed uu maxay ahayd uu ku tilmaamo dad aan wadanka ahayn wuxuu ku dhaqaaqay inuu wadanka hadeed uu ka dambeeyay inuu baabao maanta shalay u dambeysana assembleega iyay kaga dhawaaqeen maxay ahayd ninka madaxa ka assembleega Arnaud oo ah dadka uu ku adeegsaday Ismaaciil Umar iyo ninka kale ministerka Maxamed Abdulqaadir Kaamil la yiraahdo oo aragu iskaga adeegsaday Ismaaciil Umar oo ku tilmaamay dadkii reer Djibouti inay argagaxisay yihiin ayna yihiin maxay jabhad u wada shaqeysa Eritrea inay yihiin oo ay yihiin gacanta military Eritrea dadka reer Djibouti ay yihiin ayay ku tilmaameen min xiran oo ay dileen oo jidil ku sameeyeen ay ku wadani oo reer Djibouti ninka la yiraahdo jabhad la yiraahdana ay ku tilmaameen nin Ethiopiana de waxa isweydiin leh maxay hay'aday Ismaaciil Umar makaligiiba wadani Djibouti ka ah dadkii kale oo haday wada noqdeen maxay hay'aday gacantii military Eritrea iyo haday noqdeen al-shabaab makaligiiba wadaniga waxaan leenahay may Ismaaciil Umar wadani mati hadda leedahay dadka wadani baan ahay anu maqlaysaa ogow matihid waan ku maqlayaa xaajiyahayo waxa weeyaan halka in yar ka joojiyay wassalaamu calaykum badbaadada Djibouti baan nidhi programkan waxa weeyaan waxaan danaynayna waxa weeyaan xaaliyan sida ay dawladdu shacbigeega ula dhaqmayso
waxaweyaan waa si dadku ma ogolo waan arkaynaa siyaasadana waa la arkayaa xaaliyanna waxa weeyaan imika 30 sano muddo ka soo wareegtay xisbiga RBB ayaa kaad maaris loo dalbaadegaya dalbaadega oo isagu farxad bay u tahay ama xisbiga farxad bay u tahay maadaama uu xisbigu farxad u yahay shacbigana ina waxay tabanayaan laga joojo ayay ahayd bal arrinkaas ayaad ka hadlaysaa sida aragtidaada kula tahay kaad maaris horta annaga farxad nooma ah isagana farxad bay u tahay farxad waxay ugu tahay isaga waa xilligu dadku maxay helay farxaan waa xilligu la yidhaahdo runta ahaan dadku waxay farxaan xilliga carooska iyo xaflad yar la dhigayo maaha caadi ahaan waa in la farxo xilliga maxay helay qofka uu malag u yimaado uu sii socdo maaragtay marka kaad maaris waxaan u malaynayaa inay noqonayso maalintii wilaayad dadka ka dul qaadayay maxay helay culayskan Ismaaciil Cumar la yidhaahdo ee ku habsaday waddanka Djibouti inuu noqonayso baan u malaynayaa waxa weeyaan dadku xornimadooda way heli doonaan si ay ku helaan ay ku heli doonaan kaad maarisna waxaan jecelahay inay noqoto ama tamaanta ahaato ama sanadka dambe ahaato inay noqoto tii ay dadku kaga hoos baxeen Ismaaciil Cumar maamulkiisa iyo kaligitaliskiisa Ismaaciil Cumar oo ninka madaxweynaha isku dhawaaqay ee waddanka Djibouti tii ay kaga hoos baxeen ay dadku xornimadoodii ku heleen maanta waxa weeyaan waxaan arkaynaa waar waxa loo soo dagaalamay muxuu ahaa gumeysi baa lala soo dagaalamo xornimaan qaadanay baa layidhi laakiin waxaan arkaynaa in gumeysi labaad haddana jiro ay dadku u baahan yihiin xornimo labaad oo ah ciyaalkii gumeysiga ka haray ee ummadda xasuuqi jiray waagii gumeysiga la shaqayn jiray inay yahay dadkii ay weli kusii dul fadhiyaan oo gumeysigii dhabtii uu socon baa weli arkaynaa marka taasina waxaa kutusaysa maanta xabsiga waxaa ku jira ubad yaroo 16 jir iyo 15 jir xabsiga ku jiro lagu hayaayo laleeyahay waad fikirteen baa lagu haystaa siyaad u fikirteen baa dadka ubadkaa lagu haystaa waxaa kamid a gabadha yar ee jawaahiriya yaa kamid a waxaa kamid a maxaa yeelay hadal baash baa kamid a gabadha yar waa gabdho 15 jir oo yar yar wuxuu Ismaaciil Cumar xabsiga wuxuu la yiri uu dhaashi waayay marka maalinta waxaan leenahay dadku waa inay soo baxaan waa inay soo bixi doonaan bisha 4teeda Maaris way banaan bixi doonaan qof hadduu dhinto Ismaaciil Cumar way noo qoran tahay baan leenahay berina maxkamadda adduunkan ku horkeeni doonaa waana lagu sugayaa baan leenahay awgaada isaga kuwa la shaqaynayaba Arnaud iyo Cabdulqaadir Kaamilna waxaan sheegaynaa dadku inayna ahayn maxay yeelay jabhad inayna ahayn dadka reer Djibouti maxay jabhad gacantii military Eritrea ayna ahayn maxay yeelay siday sheegayaan al-shabaab iyo al-qaacida ee kuwa al-shabaab iyo al-qaacida noqon doona inay iyaga tahay oonan ognahay dawladda Djibouti ciidanka hiil ila askar ku jira la soo qabtay oo la keenay oo laga ashkatooday waan ognahay taasi waan ognahay in ciidanka Djibouti inuu ku biiriyo Ismaaciil Cumar ciidan kale inuu doonayo uu Soomaaliya geeyo ciidanka Djibouti ku daro inaan loo diiday qaramada midoobay u diiday iyo ururka Afrikada u diiday waxa loogu diidayna waan ognahay in lagu qabtay rag ciidanka Djibouti kamid iyagoo hub siinaya al-shabaab in lagu qabtay waan ognahay arrintaas marka inuu isagoo waxa ka shaqeynaya inuu dadka Djibouti ku tilmaamo maxay argagixiso marka waxaad leedahay ma dawladda Djibouti maanta shacbigeegii ayay ku tilmaantay terrorist iyo shabaab iyo Eritrea laakiin dawladdii Djibouti baa nafteedii ka shaqeynaysa oo shabaabkii caawinaysa miyaad halkaa leedahay waa sax way jirta arrintaasi oo rag baa laga soo kaxeeyey oo ciidankii Djibouti Soomaaliya laga soo eriyaday oo ka ashkatootay AMISOM ay tiri ragga waa in la kaxeeyo weliba nin baa jira oo iminka Djibouti joogo laga soo kaxeeyey waxa weeyaan waad aragteen oo wuxuu doonayo idaacadaha wuxuu ka sheegay inuu ciidan kale ku biirin doono ciidanka halkaa jooga uu ka dabageyn doono tiina waa loo diido AMISOM iyo waxa uu diiday qaramada midoobay baa diiday waxaana loo diidayna wax kale maaha waxa weeyaan waxa la ogaaday inuu ciidanka halkaa jooga qaarkood uu usii mariyo hub al-shabaab Ismaaciil Cumar oo uu kamid yahay ragga taageerada oo al-shabaab taageerada ay ka helaan halkay ka helaan inuu kamid yahay markaas inuuna iraahdo annaga inuu argagixisayna waa la iska garanayaa qaraxdii Djibouti ka dhacayna waa kan idaacadaha arrinta kale adigoo raalli ah Djibouti waa la yaqaanaa madaxweyne Cumar Geele Ethiopia ku dhashay Djiboutina dadka anfarta ama ciisaha ugu badan ee majority-ga waddanka iska degan waxay sidaas wadani ku noqday madaxweynena ku noqday maantana shacbigii ciisaha ama anfarta oo dhulka u dhashay oo sharcigiina haysta ayaa barhkood ama la masaafurinaya ama la xidhaya oo sidaa la raalli ka noqday sheekhyadii waaweynaa oo maanta jeel ku jira marka arrinkan dadka sharciga Djibouti qofku mar haddii maanta uu soo rogay Ismaaciil Cumar Geele waa wax xeerka ciisaana ka baxsan xeerka Djiboutina ka baxsan
markaas maxaad arrintaa ka odhanaysaa? arrintaa waxaan ka oranayaa wuxuu furay albaab aanan xirmayn buu Ismaaciil Cumar furay waxa weeyaan nin wadan oo sharcigii laga qaado oo dhulkiisa ka bax la yiraahdo waxay dhacday gumaysigii baa lagu arkay taasi oo lagu ogaa marka sidaan soo sheegay ninkan waa ciyaalkii gumaysiga ku shaqaysan jireen ee u soo adeegi jiray gumaysiga markaas waxa weeyaan wixii uu baray ninkii macalinkiisa uu maxay laga baray laga badi baa leeyahay wixii macalinkiisa baray uu ku isticmaalayaa uu markaa isticmaalayaa laakiinse maanta ma hinda gaalkii waa anagii waxa wada joognaa albaabkana waa albaab furay waa albaab socon doona bari marka lagu bedelo ninka bedelaan meeshaas isagu ka qaadi doonaa warqadaha isagii ubadkiisii iyo walaalihii iyo gabar yarkooda laga qaadi doonaa marka abaan arki doonaa bal wuxuu ku sheekeeyaan waan arki doonaa marka ma waxaad leedahay wixii maarag walaalkii la xiriyo soo qoyso maanta dad shacbi uu ku samaynayaa taariikhda inta noloshiisa u hadhay haddii isaga wax lagu sameyn waayana ilmihiisa aqilada aad gasho waxay dadkan odhan jireen aqilaha gelin oo qubanaha gelin haddii kale adag ku soo noqotaa marka waxa weeyaan haddii isaga ama islaantiisa ay ku dhicina mustaqbalka ilmihiisa ayay ku dhacaysaa miyaad leedahay? anna waxaan leenahay isagaaba laga goyn ilmihiisaba isla gaari mayna isagaama ka goynaynaa iminkana laga goyn doonaa baan leeyahay mana dheerana way soo dhowdahayna waayahay waxa weeyaan programkan badbaadada Jabuuti anaga oo halkaa kasii wadayna maaragtay adagala waxa weeyaan xisbiyada midna Jabuuti ma raacsana waxaan ka tuulayna waxa weeyaan badbaadada Jabuuti dadka Jabuuti iskalina waxa weeyaan waa si anfar waxaan ognahay mudane maanta inuu madaxweynaha Jabuuti uu kirsimaad ka dayayo ama maalkii Jabuuti xagga Somaliland uu badinayo waxaana la soconay 2 sanana dhaaftayna xamar inuu diyaarada u saaro hub iyo rasaas iyo maaragtay raashin iyo dawada isaga oo magac kaga raadinaya Soomaalida waa dad Soomaali walaaleen oo ma kama hinaastin inaan la siiyo laakiin xaqa horta ninka arrintiisa golku wax siiyo ayuu jaarkiisa ama ahligiisana wax siiya marka arrinka bal iyadana maxaad ka odhan? waxaan leenahay anigu waa eedha unbuu wadaaye wax ugu taraya Soomaali ma jirto waxa weeyaan waxa jira cajalado la hayo oo gacanta lagu hayo xilligay ay suurta gashaan waa la soo saari doonaa isagoo xeebaha Soomaaliya iibinaya oo dad inta yara ka iibinaya waqtigay burbursanayd Soomaaliya marka ninkani Soomaali wax ugu tarayo ma jirto qashinkan badaha Soomaaliya lagu daaday dhinac uu kaga jira marka Soomaali wax alla wax ugu tarayo ma jirto maxay hayday waxani waa eedha oo allagu publicity laga bixiyo weeyaan daayada laga bixiyo laakiin si waxaad ogaataa maanta Muqdisho marka qof la bedelo kursiga laga bedilay madaxweynaha bedilay ama hebel baa bedilay la yiraahdo kursiga ka dhaadhac la yiraahdo qofkaasi diiday waxa la yiraahdaa maxay hayday war Ismaaciil Cumar baa tahay kursiga iska dhaadhac baa la yiraahdaa ma garan marka caan buu ka noqday Soomaaliya inuu meeshan uu madaxweynuhu yahay madaxweyne isku dhawaaqay oo kaliya talisay inuu yahay caan buu ka noqday weligiiba diyaarada raro dadka Soomaalidu way barteen way og yihiin wuxuu yahay waa lagu qoslaa un war basawir un baa la yiraahdaa waa kan jaahilkii Jabuuti un baa la yiraahdaa madaxweynaha sheeganaya waa lagu qoslaayo waa laga qaaday waxaan leenahay anagu waa si wada uuna ragaana riwaayaduna ka dhigtaan oo ku qoslaan laakiin Muqdisho waa laga og yahay waxaba la yiraahdaa ninka Tarsan la yiraahdaa maalintii laga qaadayay maxay gobolka Banaadir laga qaadayay madaxtinimada rag badan baa la wareystay baa muxuu kursiga ugu dhagayaa muxuu ahaa Ismaaciil Cumar baa yiraahday ma garan marka waxaan ku leeyahay dadku isku ogyihiin weligiiba eedha iyo dacaayada doondoon aan faraynaa dadka ninka mudanaha wuxuu ka yeeshan dhigitaanka qiimaha ayaa loo adagaa nuus oo mar labaad adawada inisi gudbinaysa badbaadada Jabuuti waraysyadii ay qaadaysay imikana hawada waxaa la wareegaya oo waraysigan ka qaadayna Xaaji Cali ku soo dhawow radio Hadagala. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واد منصنتاي ولكي عمر عوالي أفيانك قبجوكتا انت حقا كده جيساني سبوان السلامية يان سلامية مركو رئيسوحا سلامية دتك ريجبوتي دمانتو ديان سلامية ويليو قبض عبي هويو دلن يرو يان سلامية دمانتو سيوديين يومدا مسكو دمان سلامية سنتا كديب وحلو دعينيا وإلها ونحرستو dadkii u soo dhintay gobonimada oo horeeyo Sheekh Usmaan oo horeeyo Maxamed Xarbi oo horeeyo in Andoole in Janaale Gaashamale Umar Ismaan
dhammaantood ma tirin karayo ilaa kuwii u dambeeyey imika ilmi yaraa fatuladiinkii la dilay waa halgami iyaan u ducaynaynaa inuu ilaahay jannada ka waraabiyo intay ka tegeen ay ka dhinteen ilaahay naxariis nabadgelyo ha siiyo oo ilaahay janno siiyo iyo maghfiro siiyo oo ilaahay jannada firdawsa iyo naciimo ilaahay siiyo ha siiyo dadkooga iyo dhinteen dulli bay qaadan waayeen taas iyay ka dhinteen oo u dhinteen ilaahay ummadooda u dhinteen iyo diintooda ay u dhinteen ilaahay u naxariisto inta kadib waxaanu sheegay ummadda reer Djibouti waxaanu sheegayaa waxa tiin dad fiican oo wadanina oo dadkooga jecel oo dadkooga dhibaatada u diidaya laakiin dad ba doonaya dhibaato iyo inay wadankiina hay ka dhigaan Soomaaliya oo kale amba wadanada kale ee jaarka wax dhibaatada ka daadsan taas isku duubnidiina ayaa ilaahay dartiin ayuu wadankiina nagu badbaadinaya caruurtiina iyo maxayday hooygiina adigantiina nabadda la doonaysiin waxaan sheegayaa rasuulku wuxuu yiri Allahumma salli alayhi wuxuu yiri munaafiqa waxay asxaabta wadiye munaafiqa waxayna yaa rasuulallah munaafiqa maxaan ku garanaa markii laga xadiisay munaafiqa waxa laga xadiisay marka laga hadlayo 14 suuradood laga hadlaa gaaladana 4 suuradood baa laga hadlaa 14 qisba laga hadla munaafiqa marka way wadiyeen asxaabtu munaafiqa san ku garanaa munaafiqa waxay yiraahdeen rasuulku wuxuu ka yiri munaafiqa waxa ku garanaysa saddex calaamadood buu leeyahay saddexda waxa kamid ah balan haduu qaado balanta qofka ku ka baxa markuu hadlayna been buu sheegay rasuulullah sallallahu alayhi waxa hadii loo dhigtana wax qaymaa buu yiri moogtahay intii oo wada arkaysiin takalladu wuxuu rasuulku wuxuu yiri Allahumma salli alayhi waxa in oo rasuulku sheegay asxaabtiisa dijaaj awar buu sheegay dijaaj awar ku yiri kawayno maaha kuwa yar yar oo badan ba ka soo horeyn doonay buu yiri oo badan jazaa'urkana waxa la inagu sheegay inaad baynagu sheegay dadka jazaa'urka raaca inuu jannada gelin ka yiraahdo oo dadka kalena cadaab oo la sheegay wad arkaysiin carabida jazaa'urka qofka ka weecda in rajiimka in umriga loo horeeyo oo in umriga ka yahay presidentka inuu u dhaqmay sidii dijaaj caru dhaqayo oo qofka isaga raaca oo leeyahay jannan siinaya in kuwa kana Quraan ka goynayo biya ka goynayo dilayo gowracayo in harad ku dilayo shaqada ka eriyo kuwa kalena أو ليه وحي وطنك عشورته دي وحي كلنا أو ليه جنة نفريا تاسي وجنة ما هو عذاب ووحلا سكدن بيو إلهي يودينا ده Djibouti بو لما ده ويكدن بيان وعلامي جعورك يعلم منافقين تانا ده Djibouti واحد كده بيحد دونتين اسكو دومني هي من نمو إلهي وثلاثة رتيمة كده بيحد دونتين يانك كبحينا تايان كبحين دمانتين يانك كبحينا هذا هاي أمد Djibouti. أوكي حاجة علي إمكا Djibouti وحا كده عايز حفلة وين oo xisbiga RBB ay dhiganayaan halismida marka xisbiga macaadka mudaarad ayay isku diyaarinayaan dawladda Djibouti shacbigeedii ay ku tilmaantay terrorist oo baarlamankii madaxda u sarreeyay ra'iisul wasaariga ay ka hadleen maxaa arrinta bal ku oranaysa sanad u aragta waxaan arkaa 95kii markii la soo diyaarinayay in Umar Geeli way shireen ragga meesha ay way shireen qabiilka meesha ay way shireen waxay ku shireen qolo kasta oo meesha degan oo amba Soomaaliya noqoto amba Anfar noqoto amba Carab noqoto inay ka soo qaataan kuwooda maxayday ugu naqan ninka arnuda oo kale ee ugu naqan inay soo qaataan oo ku shaqaystaan kuwaasi waa shaqaaloogu u hadlay weeyaan shaqaaloogu weeyaan waa kuwa u hadlo laakiin dadka reer Djibouti wadankooga iyo dadnimadooda iyaga u soo jeeda iyaga u soo jeeda wayna arkayaan kuwa hadli inay yihiin kuwa gabar ka qaba kuwa lagu shaqaysto kuwa rakuuba oo na ahayn kuwa aanan ahayn maxayday aanan ahayn kuwa waxna ka go'aan waxna u go'aan heer waxa la gaaray rajimka ay gaareen saginto naagtiisi laga furo naaga loo dhiso nin wasiira oo naagtiisi laga furo oo jarki la kiciyo oo naaga loo dhifay kaasi wasiir yahay kaas anaga wasiir loo maahin reer Djibouti wasiir ma كناتي سلا غفري الشيخ الشيخنا يا وكوي اللي يردين تلقته وما دافسنا يدي لقنت جنت وما دافسنا كواسي أي إلهي وحي يوم النفس للنفس شيء والأمر لله ما با كواسي وحويان نفك السلا نف ومن غنى يسوع كفالة مكفالة قادة يسوع أمر كسيلا بوسقنا ذي كاسي موقتاي كواسي ما أنت إن عمر جروس في جيرة محيدا كوب كاس Djiboutina way arkayaan wayna ka soo jeedaan midnimadooda waxaan leenahay inay isku duubnaadaan inay maxayday midnimadooda iyo naftooda wadankooda iyo cadaladooda u huraan
taas iyaan ku dhiiligelinaynaa oy arrin kala jirta xaajaale arrinta kaloo jirta waan ognahay gelinkan inaad jacayl oo reer Hargeysa jira warqadahana dadka ku dhashay la siiyo dadkiisa aan fartiina oo dhulka xaq u lahaa oo originalka ahaana badhkood la musaafurinayo badhkoodna shaqani laga helayo badhna jeel la gelinayo marka waad soo koobaysaa hadalka bal arrintaa kusoo koob annagu gabagabadii joognaa asalaamu calaykum waxaa ku filan waxa la yidhi maxayday waxa maanta hareeraha ka dhaxaya kugu filan qadafi wixii ku dhacay ninka caqliga wixii qadafi ku dhacay way ugu filan tahay xayli silaase wixii ku dhacay way ugu filan tahay siyad barre wixii ugu filan way ugu dhacan tahay kuwiina cumrigeed la shaqaysta iyo ku kasaba taariikhdu ay qoran tahay waa waxaana laga tegayn maantana ninka u haysta ina wax la dhaafayo wax kaasi uu qoran yahay ninka waddankiina uu qoran yahay ninka waddan yahayna uu qoran yahay nina dhuuni kugu dhidhiyey nina dhalashu kugu dhabar jabay maanta maxayday dadkii hurda way sara kaceedeen ee dhulka lahaa ninka waddanigii wadannimadiisu kama halaabays laakiin ninka waddan yahayni waxa ma saafuriyo dad ha ku shaqaysto ninka sina waa la garanayaa ummadda waxaa jirahdaa dadku waa wala walaalo ummadda aadan idhan qura laga yimiday laakiin walaalahan ilahay wuxuu sameeyey xuduuduu sameeyey adee u kala sameeyey walaalaha ninka xuduuddiisa soo dhaafay idoo qof kala galay ilaah uu sheegay waxaan qabsanaya laakiin ninka ku xadgudba wadaninimada ku xadgudba maxayda waalidnimada ku xadgudba taa waa la iskaga dambeeyaa waana waxaan waqtan dhammaanaya ilaahay baan xisaabin annagu waxaan halkan ka soo hadlayso okay dhegeystayaasheeda qiimiya qayaalo waxaan caawa badbaadada Jabuuti nagu soo koobaynaa halka xiriir waad nala soo samayn kartiin waxa weeyaan afkaarta dadka ayaan hurinaynaa xaqdaradana waa diidanahay wixii saxana waan ogolahay waxaan halkan kusoo dhaweynaynaa dhammaan anybody oo inuu rabo waraysi siiyo xisbiga maxaarka xisbiga xaafid intaba dhammaantiin dhegeystayaashow wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu